la furmayo maamulka ilaa soo jeesto taliyaha qaybta duqa magaalada ee gobolka ninka xukuumada bara saabka oo alkiin maamulka arinta oo gudbinaysa dadkiina wax galkaada oo dhan ma garanaysa dhibaatadaas aan haysa waxba waa kala weyn baski waa raaci weyn ninta kala weyn xabadii loo tigaan kala weyn lacagteena ku dil doolarka uu maraya 5 milyan iyo 6 milyan Soomaalidu waa la diiday doolar hal qaataa la yiri dadka masaakiinta way baabaayaan anagu kaash baan rabnaa dadku doolar bay raadinayaan anagu ku shinin iyo laba ku wax ku badanaa waana la diiday halka doolar kota ku baa la yiri halka doolar kota ku baa la yiri mana awoodna kunka xabada liindana ta ku shinin baa naga siisan jiray aan afar kun baa hadda la yiri xabada raatiga 3 kun baa naga siisan jiray afar kun saacada saarlada ahayd waxa la yiri afar kun shilin yaa ku naalaan kara masaakiinta waa baabaaday dawlad ma haysana dawladda baa diiday lacag doolarkiina lagu qaaliyeeyay oo lacagteeni hooyo oo dalkeeni hooyo aan u dhalanay oo aan wadaniga ku ahayn noo shaqayni waysay waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed oo ganacsatada ah inay hoos u fiiriyaan dadka shicibka ah ee ku nool kunka shilin dadka ku nool kunka shilin iyo 2,000 xoogsatadii saakay dukaanka aan u dirsanay cusbada waana la soo diiday calaantii waana la soo diiday kunka shilin waxa la yiri ma soconayo war waxa noo sheegtaan lacagtiinii hooyo oo aan u dhalateen haddii aad diideen ma doolar daanyeer soo sameeyay baa micnii ka doorsanaysaan waa maya dooni mayno doolar waxaan iga codsanaynaa dawladda Puntland iyo dadka waxgaradka inay wax ka qabtaan hawshaas dawladda Puntland aniga xamaaliyaan ahay waxaan ku shaqaynayaa mooskan soo aruuriya mooska markaan soo aruuriyo shilin Soomaaliyan qaadana shilin Soomaali markaan qaadana waxaan leeyahay marka aruurin 78 la sarfay shalay aniga hadda waxa laga sarfay 80 shilin Soomaali waxaan rabaa 35 40 meeshii ugu badan 40 laga rabaa marka haduu ilaahay hadda shalay meeshan markaan mooski soo qaadi doolar sheegnay doolar dadkii ma bixin karaan marka waxaan rabnaa in wax laga bedel antaas saasan rabnaa aad baa mahadsantahay waxa dhacday lacago in loo raray magaalada Boosaaso lacagtaas oo kaasha lacagtaas oo misna la xayiray meesha la yiraahdo Garowe ama ilaa Boosaaso inta ka sokaysa wadada lagu xanimay waxaana kooskareeyay dawladdu aan ka fiirsan waxayna ku sheegtay inay lacagtaas tahay lacag macnaha kontrabana mana ahayn lacagtii Soomaaliya bay ahayd gaar ahaan Puntland bay ahayd lacagtaas waxay keentay doolarkii inuu kaco markii la soo celiyay gaalka dib loogu soo celiyay bay waxay kicisay lacagtii doolarka ahayd markii kaashkii batay oo lacagtii dalabkii doolarka batay waxay kooskareysay in doolarkii la waayo tirada macnaha lacagta badan oo kaashka oo gaalka ku soo laabtay sidaa darteed bay sababtay in doolarku kaco hawada galo raxiim dhammaan waa salaamaya shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa in la qaato lacagta Soomaaliga oo madaxweynaha Puntland waxaan ka codsanaynaa inuu ka dhigo 3 milyan doolarka shirkadda Golisna waxaan ka codsanaynaa ugu yaraan $50 lacaga yeysan bedelinba yeysan qabaninba oo qofka ka hooseeya yaani qofka yaa loogu shubin waxa kalifay maanta in uu doolarkii kor u kaco lambarka waa shirkadda Golis oo qof walba hadii uu damca inuu baawur raaco 25 senti gaarigiiba u shubaya hadii uu raaco haduu damco inuu shaah ku cabo halkii senti hal senti buu u xawilaya markaas lacagtanadii Soomaaliga ay ka baxday khadka waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh iyo shirkadda Golisba inaysan $50 ka yar ama $100 ka yar aan lambar mobilkeeda aysan ku dhicin madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu doolar keeno 3 milyan taas ayada waxa dhacday caruurtanadii yaryarayd inaan markaan dhahno 5,000 qal ku iibsada 2,000 ku iibsada in la yiraahdo lacagtii Soomaaliga in ka socon mayso maba soconayso ilmihi yaraan AFC iyo mobil iyo sahal waxba ka gaar mahayo mana haystaan way naga caqdeen mudaharaadka ka mudaharaadaya lacagta Soomaaliga la diiday laba system kaliya weeye lacagta Soomaaliga agoon weeye maamulka ayaa ba ilaalinaya ayagina ma qaadanayaan oo Soomaaliga waa la diiday Golisna way kaabtay oo qof kasta oo sahal buu wata khadku ka baxay marka waxa la doonayaa laba system kaliya weeye dawladuna waa inay qaadataa
gooliskana waa in la xanibaa oo libid loo yeelaa sida konton boqol waxyaalahaas libidka oo in la fariisiyo qof kasta Soomaali uu qaadanaya inteena hal qof oo Soomaali jeebkiisa ku jira male qofka sahal buu wataa haddii laakiin la xanibo sahalka la xanibo oo doorka la yareeyo libidkiisa la magaciisiyo qof kasta Soomaali uu qaadanaya qofkii wax sadaqaysanaya iyo kii wax gadanayaba qof kasta marka waxaan anagu ka codsanayaa dawladdu inay shacabka maatada ah oo eberka noqday ay hoos u fiiriso waxaanu nahay maxaan ku raahdaa ganacsatada magaalada waxaanu nahay ganacsatada magaalada khaas ahaan waxaan nahay moosleyda lowrleyda ah oo dakhliga magaalada u badan soo gelisa waxaanu ku gadanaa xoolahaanu anagu ganacsano kaashka doolarka annaga xamar waxaana laga siiyaa 2 milyan iyo 500 kaalkacayana maanta wuxuu marayaa 4 milyan iyo 600 kaashkiina waa la joojiyey waxaanu dawladayda ka codsanaynaa oo maxaanu ka codsanaynaa odayaasha waxaanu ka codsanaynaa nabadoonnada waxaanu ka codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa waxaanu ka codsanaynaa doolarka in la ka rido waxaanu ka codsanaynaa kaashka in la qaato waxaanu ka codsanaynaa maxaan ku rahaa masaakiinta in lagu tuman annagu maahin Maraykan maahin gaal maahin Soomaaligaas aanu leenahay isaga hidiya dhaqan oo ah isagii waa nala ku diiday ciyaalkii waa nala ka baqtiyay ganacsiga iyagu waa istaagay waxaanu nahay ganacsatada mooska lowrleyda oo xamar uga yimaado xamar 2 milyan iyo 500 baan loo ku sarifaa gaalkacayana 4 milyan iyo wuxuu marayaa maanta 700 waxa weeye kaashkii isagoo jawaanaabu noo yaal waana nala ku diiday masaakiintii waa baqtiday waxaanu doonaynaa haddaanu ganacsatanahay inaan nala ka joojiyo wax nala ku wado in sarifka nala ka dejiyo in maxaan ku raahdaa kaashka la qaato waxaanu nahay hooyooyinkii magaalada waxaanu nahay suuq joogtii waxaanu nahay ganacsatadii waxaanu nahay dadkii indhaha magaalada ahaa waxaanu dacwo ka nahay booyntiyada gol istirayso oo indhaha naga riday oo waxba noo tarayn oo ilmaha iyagii baabiiyey oo lacagtayadii baabiiyey oo wadanninimadayadii baabiiyey taasaanu dacwo ka nahay inna laga qabto oo dawladdu hoos u fiiriso dawladdu hoos waxa u fiiriso war annaga idinkaa dawlad noo ah dawlad kale ma lihin waxaas dawladda diidda iska daayay waxaanu idinka rabnaa inaad wax ka qabataan hawsha meesha taal annaga wadanka golis yay ku shaqaysan kaligeed dadka ha fiiriso dadkii masaakiinta way baqtireen caruurtii shalay way naga baqtiyeen biyihii saxarladii waa laga gadi waayey qalinkii waa laga gadi waayey nacnacii waa laga gadi waayey waar qof walba wuxuu yidhi doolar baan rabaa war annagu Soomaali baan nahay warqadaha xaashiyaha oo ilaahay noo barakeeyey ilaahay baa noo barakeeyey war yaana laga gubin ilaahay ha laga boqo waxaan leeyahay waan ka hadlayaa hana laga joojiyo booyntiyada golis tuurayso lacag $10 ka yar ma ogolin waa diidnay war yaa nala qaba waan diidnay haddii kale golis waan gelaynaa waan weeraraynaa annaga hooyooyinka u hormarayna annagu aan dhaqan iyo asal u lahayn laga tago waxna qabto ma aha waxaan u taagannahay dadku dawladdu inay dadka dantooda fiiriso dadka ay matalaysa fiiriso shacabkooda ay u tudho lacag shacabkooda ay u tudho lacagaha ay qaataan oo ka qaataan lacagta Soomaaliga ay socodsiiyaan ciddii amarka qaadan weyda oo u hoggaansamada dawladdu in iyadu maamusho maadaama magaca matalaada ummadda Soomaaliyeed ee meesha ku yimaada gaar ahaan Puntland marka waxaan rabnaa dadka shacabka ah oo meesha jooga oo qofba waxa weeye dhaqaalihiisu meel joogo qofba dhaqaalihiisu heer gaarsiisan yahay malyankii guriga u yaallay haddii saaka waxba lagaga qaadan mayo de macnaha de qofkii waxa loogu talagalay noloshiisa lagama shaqayn waxa la rabaa qofkii noloshiisa wuxuu ku maareynaya in laga qaato doolarka la joojiyo lacagta kaashka 3 milyan lagu celiyo waxa loo baahan yahay lacagtu inay kala shaqayso oo doolarka in waaweyn sida adduunka ka socota ma garanaysaa waxa lagu iibsado inta yaryarna ay noqoto lacag sarifo marka xal badan baa loo baahan yahay dawladda xal baa looga baahan yahay shirkadaha hadii ay ku xawalaada xal baa looga baahan yahay xal badan baa loo baahan yahay si aan lacagtaydu u baabin haday lacagtaydu baabada waxay la mid tahay dad baabaayina noqonay marka waxa weeyaan hawshaasi waxay u baahan tahay dawladdu inay ka qayb qaadataa shirkaduhu ka qayb qaataan ganacsatada ka qayb qaadataa si walbaba wax looga qabtaa ee aan loo fadhiin waayo gurigaaga dab soo qabsaday hadaa u fadhidid dabku dhinac kale uu kaga baxaya